waa tahay dadka rayidka oo la laaya kadib lagu tilmaamo shuhado maxay diintu ka qabtaa? alxamdulilah axmed weydi halkaa wuxuu tilmaamayaa dadkan la laayay waa muslim ilaan gaal shahiid ma noqde kan wax dilayna sida ka muuqata waa muslim ilaan qofka hebel waa shahiid leh waa qof shahaado iyo fadli la raadinaya wey shahaado iyo fadligeedna de waa waxyaabaha islaamku iska leeyahay marka waxaa ka muuqata saddex arrimood kan la dilay muslim buu ahaa kan wax dilayna muslim buu ahaa ta saddexaad kan wax dilay wuxuu rumaysan yahay dadka inay muslimiin ahaayeen buu rumaysan yahay oo gaalo kama rumaysna dadkaa la dilay muslim ahaayeen buu rumaysan yahay mas'aladu waa shahiid iyo ma aha dabcan dee sababtay ku dhinteen bay ku xiran tahay haddii qofkan la dilay isagoo naftiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisa iyo difaacaya nabiga yidhi calayh الsalaatu wasalaam man qutila duuna damihi fahuwa shahiidu waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiidu waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiidu qofka saas la dilay ee shacab iyo rayid ah dilka la dilay dulmi buu ahaa qofka dilayna daalim muctadi oo xadgudbay waaye isagu laakiin waxaa su-aashu waxay ahayd shahiid weeye laleeyahay dee shahiid waa noqon karaa asbaabta noocaas oo kaleeta haddii ay tahay haddiise aynan taas ahayn tamidda haddaba mar badan dhacda dad badanoo meel jooga in qof iyo laba loo dan leeyahay dadkii badnaana lagu halaaga meesha sida dunida meelo badan iyo soomaaliyaba ka dhacda kadib la yidhaahdo dadkii aan laynay iyaga shahaaday helayaan waa laga yaabaa iyaga ilaahay shahaado dulmi lagu dilay inuu u siiyo laakiin sida loo yidhi dembi baa la galo oo dad muslima bilaash lagu laayay kii daalimka ahaa ee jariimada dilka muslimiinta geystayna waxaa loogu qalbi qaboojinayaa dadkaa shuhadaad ka dhigtay jariimadii muslimka la laynayey baa sharci ahaan loogu qeyl bixinayaa waa tii ragga qaarkii yidhaah lahaayeen oo kaleeto muslimka markay laayaan alqaatilu mujaahidun walmaqtuulu shahiidun tii oo kaleeto wey haddii la dhihi lahaa alqaatilu mutaawil wax khaldan baa sax isla mooday laakiin wuu khaldanaa ma la raba in la yidhaahdo marka weli waad fiican tahay adigu dilkaaga waad fiican tahay qofkana bilaash iyo khalad baa lagu dilay wey ilaahay qofkii si qalada ku dilo xataa aan isagaa u jeedina xabadu iska tuuray iyo ugaadhuu ku tuuray ay qof ku dhacday baa sharcigu adduunka lagu ciqaayo man qatala mu'minan khata'an wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'mina ilaa khata'an waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqaba ciqaab baa la saaray dadkan nabigeena calayh salatu wasalaam markii uu maka galayey dagaalada waxaa loogu diiday hore walowlaa rijaalu mu'minuuna wa nisaa'u mu'minaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilm haddaynan jirin rag iyo dumar muslimiinoo idaan ogeyn oo laydin diidan yahay intaad ogaansha la'aan ku laysaan inay muslim ku jiraan meesha ma ogid haddana dembi iyo ismi idinka soo gaadho aan la idin diidanayn waa laydinku fasixi lahaa dadka maxaa laga yaaba waxaa laleeyahay dembi baa idinka soo gaari dad aynan ogeynba muslim inay yihiin oo muslim oo meesha ku dhex jiro mustadcafiin oo masaakiina haddii dagaalkii gaalaad la dagaalamaysaan cagta marisaan kan laakiin muslim uu og yahay oo muslimnimona u og yahay buu kas u laynaya markaasuu leeyahay shahiid waay kan kas buu u laayay kuwan aan ogeynba muslim inay yihiin baa laleeyahay fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilm mas'aladani waa masalo runtii dhiig badan oo muslim dulmi loogu daadiyey mas'alo la yidhaahdo hadalku wuu jiidanoo dee mas'aladani waxaa dadka la moodsiiyey masalatu tatarus la yidhaahdo wey tatarus waxaa loo yidhahda tursiga gaashaanka la yidhahdaa hadday gaaladu muslim gaashaan ka dhigato oo muslimka intay ku dhex gabato iyadoo dagaalka soo wada muslimka iska horreysiiso oy laba khiyaarina qabsato inaan dayno ay inagu qabsadaan muslim iyagoo iska soo horreysana muslim hadii aan dhahno iyo inaan muslimkii dilo si aan isaga celinoo inteena dambe u badbaadinay culimmadu ka hadleen masaa'il badan oon soo gelaynin shuruudii baa la xambaarsiiyey marka koobaad culimmadu qaar waa diideen qaarna
waxay shuruud adag bay ku xireen iyagoo shuruuddaada ku xiray bay haddana waxay yidhaahdeen asal sharci ah oo qowlka aan shuruuddaa ku xirnay u markhaati kacayoo la cuskada ma hayno way qof muslina oon jariimo gelin oon wax loo dilo gelin oon wax dembiya lahayn inaad kas u dishaay daruuro iyo maslaxa raajixan bay ku baneeyeen maahane oo ilaahin asal u markhaati furaya ma hayno maahane nusuusta shariicadoo dhan way diidanta laakiin masalatu daruura iyo masaalix bay culummada qaar ula muuqatay laakiin hadda qaabka loo sameeyo ama qaraxyada ha noqoto qof isqarxinaya ama madfac lagu tuuraya ha noqotee maaha xataa culummadaasi shuruuday baneeyeen maaha marka waxani waa tii nabigu ka digayeen weeye sala allahu alayh ali wasalam xadiid caabis alkhifaari imaam axmed warinaya wuxuu ka mid ahaa baadiruu bilacmaali khisaalan sitan dhan 6 xaaladood oo aakhiru zamaanka dhici doonta intayna idinku dhicin camal saalix iyo khayr iyo wanaag badsada waxaa ka mid ahaa wuxuu nabigu sal salaam imrat asufahaa dad wax makasa oo aan mas-uuliyad diin iyo dunya qaadi karin inay madax noqdaan wa kahrata ashurad boolis ciiddaa ka badan oo dadkii qadha un ku hayo dadkii la wada ciqaabayo car hadal la wada leeyahay oo dadka cabsi iyo walwal lagu noolaado waxaa ka mid ah waa bayca alxukmi xukunkii iyo kursigii iyo codkii oo la kala iibsanayo ani ii shubiyo anaa kan kuu samaynaya lacag qaado cod la kala gadanayo oo ninkii lacag badanun xukunka qabanayo marka waxaa ka mid ahaa wastikfaafan bidami dhiigga muslimka oo la fududaysto maanta wuxuu noqday caagadaa biyaha la cabayo dhiigga muslimkee ka rakhisanaaday markaasaa haddana markii hore waxaan ku roonayn qofkaad gelaya ida dembi inuu yahay isaga iyo dadku way wada ogaayeen laakiin muslimka in la laayaa diin laga dhigay ninbaa wuxuu ku leeyahay jannuu ku raadinayaa muslim tukanaya oon dembi ka gelin oon waxba samayn maxaa loo laayay hal nin baa ku dhex jira 20 iyo 100 qof loo dilayaa marka mas'aladani iyaga madluumiin shuhadaa inay noqdaan oo darajada ilaahay siiyo way dhici kartaa oo fadli ilaahay waasic wey walow asnaaftii aanan ku garanaynin tilmaamihii la sheegay shahiid way yahay qof kastoo dulmi loo dilana dee uusan shahiid ahayn laakiin qofka waa shahiid leh ee intaa isugu laab qaboojinaya iyo ka waa shahiid buu noqon leh waxaan la yaabay waxaan xasuustay nin wiil yaroo koraya baan arkay arrimahan aan wax ka weydiiyey wuxuu yidhi annaga waxaana lagu yidhi dadkaa sida aad ku laysay shuhaday noqon haye aakhara way ku dhundhunkan khayr jazaka allahu khayran shahaadaad sabab noogu noqotay ku dhihi waa la dhiiri gelinayaa ninkii intaasoo dhiiga farqaha loo qabsanaya aakhiro baa in loogu mahad celinaya dadkii uu dulmiga ku laayay baa laga dhaadhicinayaa eraygan waxaan ka dhadhaminaya waxa inuu tilmaamayo waar dadka muslimkaa dhiigooda hala badbaadiyo iyagoo haddii ilaahay shahaadad siiya macnaheedu ma aha adiga inay ku bannaantahay inaad disho ninka xoolihiisa aad ku qabsateen nabigu man qutila duuna maali fahuwa shahiid la yidhi haddaad disa waa shahiid laakiin xoolihiisa ku qabsato disho makuu bannaanta macnaheedu maaha isagu dilka aad dishay shahaaduu ka heli adiga inay kuu banaynayso ay qiil kuu noqonaysa maaha adigu laba gooraba daalin baa tahay hadduu isagu shahiid noqdo adiga daalin faajiraa tahay kas bay ahayd hadda kas bay u badan tahay kamaa hadday ahayd kafaaraad iyo waxbaa laga rabo bilahi towfiiq waa tahay ajri xasanaad aan la soo koobi karin allah kaa siiyo sida wanaagsan ee sharaxaad dheer aad uga bixisay su-aashani